ciiduna uma maqna ceelna uma qodna intii horeba ula socotay taariikhdeeni taxanaha hay'adda madaxweynihii shanaad ee Cabdulqaasim Salaad Xasan aynu ka sii anbaqaadna halkii haddaba inoo joogtay aniguna walibax barqiye telefishinada iyo idaacadaha ayaa tabinayay doorashadii lagu dooranayay madaxweynaha dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta oo ay dunida ka joogeen halkaas ayay kala socdeen haddaba markii la doortay kadib bulshada ayuu ka codsaday in faataxada ay u maraan kuna garab galaan xilka weyn ee loo doortay isaga oo yiri mas'uuliyadda inta leeg tii Ilaahay yiri weeye waxaan u bandhignay mas'uuliyadda cirka iyo dhulka iyo buuraha markaasay diideen markaas aadanuhu qaaday innahu kaana dhaluman jahula hadda aadanahasan kamid ah mas'uuliyaddii cirka iyo dhulku diideen abaal gudaraadeed ayaan idinka codsaday idinkuna waa ii dhiibteen markay halka taagan tahay waxa qaadi kara ama laga rabaa inay qaadaan Soomaali meelay joogtaba qof kasta oo garaad leh mas'uuliyadaas Ilaahay horti iyo shacbiga hortiisa waa saaran tahay aniga kaliya ma saara waxay saaran tahay baarlamaanka aanu dooranay si gaar ah u saaran tahay waxay saaran tahay duubka ina doorto ayagu ina dhalay macal madaxweynaha duubkii dhalay bay saaran tahay waxay saaran tahay haweenka Soomaaliyeed waxay saaran tahay labadii kun oo ergada ahayd bay si gaar ah u saaran tahay waxay saaran tahay ummadda Soomaaliyeed shanta qaaradood meelay joogtaba inay markaan gacantayada ka bixin ee sida ay u hayso balad iyo baadiyaba mas'uuliyad caam ah weeye maaha mas'uuliyad khaas ah waxaan codsanayaa mas'uuliyadda inta leeg oo aniga aad magac ahaan hormuud iga dhigteen Ilaahay hortii inaad ka ballan qaadaan inaad ila qaadaysaan adnan kaligay ugu eeganay soddonkii Agoosto 2000 ayuu ka soo degay garoonka Beledoogle ee gobolka Shabeellada Hoose madaxweyne Cabdiqaasim Salaad isaga oo si weyn loogu soo dhaweeyay Walaweyn Afgooye Lafoole Xamar iyo Stadium Muqdisho ciidamadii ammaanka soo hogaamiyay oo ahaa General Galaal iyo Jilacow salaan kadib wuxuu dadweynaha u sheegay inuu muhiimadda siin doono arrimaha nabadgelyada ee Muqdisho kadib waxa goobo kala duwan lagu xareeyay maleeshiyo beeleedyo kumanaan kor u dhaafayay inkastoo dawladii Cabdiqaasim Salaad Xasan uu madaxweynaha ka ahaa wada hadal la gashay hogaamiye kooxeedadii jiray waqtigaasi waxaase xaaladdu ka dartay markii uu khilaaf ka dhex qarxay dawladda dhexdeeda madaxweyne Cabdiqaasim iyo ra'iisul wasaare Cali Khaliif ayaa isku maandhaafay sidii ay u socdeen kadib baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ayaa kalsoonidii kala laabtay ra'iisul wasaare Cali Khaliif 28 Oktoobar 2001 la socda qaybaha dambe oo aan soo dayn doono